shalay, maanta iyo berito. Noloshu way qurux badan tahay ee ku raaxayso. Waa hadiyad qaali ah. Hana ka murugan shalay, waayo waa la soo dhaafay. Hana ka walwalan beri, waayo weli laba gaarin. Ka fakar maanta kana dhigo maalin qurux badan. Shalay, in laga murugoodo wixii tagay, waqtiga ayuu ka qasarinayaa. Wixii tagay waa taariikh, ma tirtiri kartid, waxna kama bedeli kartid. Waxay ahaayeen wax qoran, sabab ayayna ku dhaceen. Bilow nolol cusub oo iska ilaaw wixii aad soo martay, wixii ku dhaawacay, wixii ku dhibaateeyay, shaqo aad weyday, guri ka gubtay, xiriir ka xumaaday, nin ka tagay, haweeney ku qiyaantay, dhammaan iska ilaaw sababtoo ah ma soo celin kartid, way dhamaadeen. Qofka maanta oo dhan ka murugoonaya wixii tagay waa qof raba inuu ilmaha la dhalay ku celiyo caloosha hooyada, ilinta oohintana ku celiyo isha, maalintiina ku celiyo habeen la soo dhaafay. Suurtagal ma ahan ee nolow hadda kuna raaxayso, iskana ilaaw wixii tagay waa tageen. Waa fiicnaan lahayd haddii aan sidaas samayn lahaa iyo maxaan sidaas u sameeyay. Kuma caawinayso ee waxay kugu mashquulinaysaa fikir aan xal lahayn. Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri haddii ay kugu dhacdo arrin hadhihin haddii aan sidaas iyo sidaas samayn lahaa, laakiinse waxaad dhahdaa qadarullah ma shaa facalu. Waa in aad kala doorataa in aad hore u socoto oo nolol cusub bilowdo, iyo in aad ku noolaato xusuus wixii aad soo martay iyo ka sheekayn taariikh tagtay. Taas waa go'aan adiga kaliya aad gaari karto. Marnaba gacantaada ha ku burbur noloshaada. Waxaad u baahan tahay in aad bilowdo nolol cusub. Ka bilow meesha aad joogtid, ku bilow wax aad haysatid hadda. Waxaad u baahan tahay in maskaxdaada aad ka masaxdo maalmo mugdi ah oo aad soo martay si aad ugu diyaariso maalmo qurux badan. Waxaad u baahan tahay in aad naftaada ku mashquuliso wax dan kugu jirto oo horumar ku gaarsiin karo. Waxaad u baahan tahay in aad nafta ka ilaaliso firaaqo badan iyo caajis. Hana iloomin waxa soo socda ayaa ka wanaagsan wixii tagay. Marnaba ha iloomin cashirkii aad ka baratay shalay si aysan mar kale kugu dhicin. Ha ka murugan wixii tagay oo adduunyo ah, sababtoo ah Alle ayaa xigmadiisa kugu siiyay. Inta aad haysatid leh alxamdulillah. Maanta nolow hadda, sababtoo ah nolosha dhabta ah waa hadda. Xilligan aad nooshahay, xilligan aad daawanaysid muuqaalkaygan, lagama yaabo in aad ku raaxaysatid noloshaada haddii aad ka murugoonaysid wixii tagay ama aad ka fikirayso wax soo socda. Waxa aad nafsadaada u sheegtaa in aad hadda nooshahay oo maanta kali ah aad haysatid. Hadda ku dadaal salaada, quraan akhriska, sadaqada iyo dhammaan wax walba oo Alle uu jecel yahay. Kuna qurxi maalintaada jacayl, naxariis iyo dhoola cadeyn qurux badan. Ugu noolow maalintaada sidii iyada oo ah maalintii kugu dambeysay noloshaada. Maalin walba oo ku soo marta waa maalin cusub ee ka faa'iideyso, sababtoo ah ma soo laabanayso mar kale. Noloshu waa hadda. Wixii tagay waa xusuus ku jirta maskaxdaada oo ah hadadii la soo dhaafayay. Ma aan wax la taaban karo. Sidoo kale waxa soo socda waa sawir ku jira maskaxdaada oo aad ku riyoonaysid. Isaguna ma ahan wax la taaban karo oo xaqiiq ah. Waxa kaliya ee aad haysatid waa maanta, waa saacadan, waa daqiiqadan, waa hadda. Hadda ayaad maamuli kartaa, hadda ay gacmada ku jiraan. Haddii aad hadda si fiican ugu faa'iidaysatid waxaad haysataa hadhow xusuus qurux badan. Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri haddii aad waad berisatid ha sugan galabtii, haddii aad galabaysatidna ha sugan subaxda. Berito ha ka walwalan in badan waxa ka maqan oo mustaqbalka ah. Alle ayaa garanaya waxa dhici doona. Xoogga saar in aad wanaajiso maanta iyo waxa aad haysato. Ha ka hormarin maalmaha. Ma waxaad rabtaa in aad cuntid tufaax aan soo bixin. Berito ma aan wax la taaban karo oo xaqiiq ah. Marka maxaad ugu murugoonaysaa maalin ay qorraxdu soo bixin? Ha ka murugan waxa soo socda oo aadan ogeyn in aad noolaanayso iyo in kale. Talada Rabbigaaga u dhiibo. Xasuusna in aan cidna kuu diidi karin wixii lagu qoray. Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ogow haddii ummad oo dhan iskugu tagto inay wax ku tarto, wax Alle kuu qorin kuma qaban karaan. Ogsanow in nafsi aysan dunidan ka tagayn ilaa ay ka dhamaysato wixii Alle u qoray. Haddii ay tahay risqi, hanti, caafimaad, caruur, lamaane iyo nolol wanaagsan. Mustaqbalkaaga waxay gacanta ugu jirtaa Rabbigaaga og xaaladaada. Wuu kuu naxariistay xilli uu ku abuuray. Adduunka ayuu ku keenay. Wax kasta oo dunida ku jira adiga ayuu ku abuuray. Nimco kasta oo aad hadda haysatid asiga ayaa ku siiyay. Marka soo ma ahan in markasta Rabbiga agtiisa aad ka sugtid mustaqbal wanaagsan. Alle wuxuu jecel yahay kuwa tala saarta.